bismillah. Waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha ka kala socda ardayda jaamacadeed iyo saxafiyiinta kale. sidoo kale waxaan salaamayaa xubnaha ka socda qareennada Soomaaliyeed, gaar ahaan abukaata gacal iyo abukaata daahir carab. sidoo kale waxaan mahadcelinayaa soo qabanqaabiyaasha mustaqbal media. runtiina aad ay umahadsan yihiin dhammaan dadkaas oo dhan. waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu. markaan yaro taabto doodii muxuu ahay abukaata carab, si fiican isaga u faahfaahiyey. isagaana muddo ilaa 20 sano kusoo dhex jiray hanaanka muxuu ahay qareennida iyo garsoorka. sida uu sheegay, dhawaanahan waxaa dowladda federaalka ama golaha wasiirada lagala noqday kalsoonida ay soo magacaabeen guddiga adeega garsoorka oo 5 xubnood ah. 5 xubnood marka waxyaabaha keenay su-aalaha waxaa ka mid ah sida dastuurka uu qeexayo muxuu ahay 3 xubnood oo ka socda bulshada rayidka, weliba ah dad u leh aqoon durugsan oo bulshada sumcad ku leh, iyo 2 qofood oo ka socda guddiga qareennada ama muxuu ahay legal associations ka jira dalka. marka waxaa dhacday intii 5tiiba ay soo magacaabeen, kadibna arrintii marka ay bulshada rayidka naftarkeed ka hadashay. markaan usoo noqdo su-aashii ahayd bulshada rayidka ma lagala tashaday, 2 si waan ku macneyn karnaa. bulshada rayidka waa ballaaran tahay, ma aha 1 qof iyo 2 qof. dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa bulshada rayidka. bulshada rayidka si waxay soo gashaa kaalinta 3aad ay soo gashaa marka la fiiriyo, oo markii dowladda iyo laga hadlo iyo international community-ga iyo shacabka. marka bulshada rayidka boos ku haysaa shacabkay taaganta. marka waxaa laga yaabaa qaarna waa nidaamsan yihiin, qaarna ma nidaamsano. qaar waxaa jira bulshada rayid ka tirsan oo aqoon-yahano ah oo aqoon durugsan u leh oo khubaro ah, iyo qaar nidaamsan oon laakiin lahayn aqoontii iyo khibraddii wixii aanan lahayn. marka sidaas darteed ma dhihi karno bulshada rayidka waa lagala tashaday, mana dhihi karna lagalama tashan. sababta waxaa laga yaabaa dad aad muxuu ahay bulshada rayidka ka tirsan oo sumcado leh in ay la kulmeen ama ay kala tashadeen. dabcan iyaga xataa markay tilaabadan qaadayeen waxaa laga yaabaa in dad kale ay talooyinkaas siiyeen, inaysan keligood iska qaadin. marka taasaa waxay keeni kartaa marka marna waxaa la dhihi karaa bulshada rayidka lagalama tashan, marna waxaa la dhihi karaa waa lagala tashaday. laakiin 2 si aa loo kala saari karaa. formal meeting ama kulan oo laiskugu yimid oo la ogyahay oo looga areensaday xubnaha ka mid ah guddiga garsoorka ee ka socda ururada bulshada ama bulshada rayidka, in wadatashi caam ah ama saxaafadda loo soo bandhigay ma aysan dhicin taas. marka maadaama taas aysan dhicin, marka waxaa laga yaabaa si dadban in loola tashaday ururada bulshada rayidka. marka waxaa laga yaabaa in xataa doorin xil weyn jiro xilka usoo dhigo wuxuu ka mid noqonayaa bulshada rayidka. marka talooyinkaas meelahaas inay kasoo arursadeen waa iska macquul. aadana umahadsantiin.